baadkan isku dhac hubaysan oo geystay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay magaalada Baraawe kaasoo dhex maray ciidamada ilaalada madaxtooyada Koonfur Galbeed iyo ciidamada militari oo ku sugan magaalada. Dagaalka ayaa geystay dhimashada in ka badan 12 ruux sida ay xaqiijinayaan ilwareedyo dhinaca caafimaadka oo ku sugan magaaladan. Inkastoo aysan Koonfur Galbeed si faahfaahsan uga hadlin dagaalkan, haddana waxaa la xaqiijinayaa in ciidamada dowladda federaalku ay xoog ku galeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Baraawe, iyagoo cabsi ka qaba in ciidan gurmada oo ka yimaada Baydhabo ay ka soo degaan, kuwaasoo taageeri kara ciidamada ilaalada madaxtooyada Koonfur Galbeed sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya magaaladaas. ugu maaha dhacdooyinka dagaaladan. Inta badan isku dhacyada hubaysan ee ka dhaca gobolka Shabeellaha Hoose ayaa soo taxnaa tan iyo markii ay burburtay dowladda dhexe ee dalka, kuwaasoo ku xariirsan lahaanshaha maamulidda iyo sheegashada deegaanka. laakiin 5 sano ee la soo dhaafay ayay danka deegaanadan ka nasteen colaadahaas. mudanayaal ka tirsan golaha baarlamaanka 11aad oo deegaan doorashadoodu tahay Baraawe ayaa cambaareeyay ficilada huriyay dagaalka. waxay ku sifeeyeen mid aan loo baahnayn inuu sii socdo. dhinaca kale qaarkood ayaa xalay la xiriiriyay dhacdooyin siyaasadeed oo tagay iyo dagaallo hore u dhexmaray dhinacyada ku loolama deegaanadaas. kalfadhiga baarlamaanku ay dood ka furtay iyo aan madoobe oo la eegayo. fadhigii maanta ee xubnaha golaha shacabka ayay buuq ka dhex abuurtay xaaladda dagaalka Baraawe. qaar ka mid ah xildhibaanada laga soo doortay magaaladan ayaa gudbiyay mooshin, waxayna sheegeen in dagaalka dhacay uu yahay mid ku saleysan dagaaladii qabaa'ilka ee hore uga dhici jiray gobolkan, kuwaasoo laga raysay tan iyo 2017. mudanayaasha labada dhinac ee ku dagaalamay Baraawe ayaa fadhiga maanta gacan ka hadal ay ka gaartay xaaladda markay isku fahmi waayeen habka loo eegayo waxa ka dhacay Baraawe iyo cidda ay ka amar qaadanayaan ciidamada dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya magaceeda wata. gudoomiyaha golaha shacabka Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaa madasha ka sheegay in magacaabayaan guddi gaar oo shaqadoodu tahay sidii wada hadal loogu dhamayn lahaa dagaalka Baraawe iyo dhacdooyinka ku xeeran oo uu sheegay in halis badan ka imaan karto. wuxuu ugu baaqay in la soo afjaro xalna laga gaaro si dadka deegaanku aysan mar kale dhib u dhex mari lahayn. isdiidooyin ayaa dul hoganaya dagaalka Baraawe, inkastoo ay qaar ka mid ah dhinacyada Koonfur Galbeed ku eedeynayaan arrinta ay ku lug leeyihiin qaar ka mid ah xubnaha sare ee dowladda federaalka. haddana ma jirto cid rasmi ah weli kor ugu sheegatay waxa ka dhacaya magaaladan. sida ay xiriiro ula leeyihiin dhinacyada siyaasadana lama saadaalin karo. xasan iyo lafta garan oo qadiyadda Baraawe ay xujo ku tahay. wadahadal xagga telefoonka ayaa dhex maray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Laftagareen, kaasoo yoolkiisu yahay sidii dagaalkan loo joojin lahaa, iyadoo ay wararku sheegayaan inay Koonfur Galbeed doonayso in ciidamadan laga qaado Baraawe oo ay degaan meel ka baxsan magaalada maadaama ay militari yihiin. balse xubno ka tirsan golaha wasiirada ee federaalka ayaa aragtidan ka soo horjeeda. madaxweyne Xasan Sheekh ayay xaaladdan ku noqonaysaa mid culeyskeeda siyaasadeed leh. muddaxileedkiisii hore ayaana ku suntan dagaallo khasaare ba'an geystay oo isla deegaanada Shabeellada Hoose ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka, balse uu dagaalamay qaab qabaa'ileysan, taasoo haddii maareynteeda hadda lagu guuldarreysto xasuusta dib u celinaysa halis ka xoog badanna ku noqonaysa midda hadda taagan hannaanka dib-u-dhiska dowladnimada Soomaaliya. haddii ay fashilmaan dadaalada la xiriira in nabad waarta loo helay xaajadan, xiriirka dowladda federaalka iyo Koonfur Galbeed ayaa la aaminsan yahay in saameyn aan wanaagsanan ay ku yeelan doonto. balse madaxweyne Xasan ayaa hadda u baahan garabka siyaasadeed ee Koonfur Galbeed. haddii lagu guuleysto in halkaa lagu joojiyo dirirta, waxaa laga baaqsan doonaa dad Soomaaliyeed oo dagaaladan ku dhinta iyo xiriirka dhinacyada oo xumaada. Soomaaliya waa dal jilicsan oo aan laga bogsoon dhacdooyinkii ay ka tageen dagaaladii sokeeye ee qabaa'ilka dhex maray 1991 markii ay duuntay dowladdii kacaanka, balse shacabka oo ka daalay dhibta iyo rajo la'aanta ayaa daaqadda ka saaray xasuusaha dhacdooyin badan, kuwaasoo ay tahay in siyaasiyiintu xoojiyaan sidii loo sii tirtiri lahaa.